Israa'iil waxa ay doonaysaa in meesha laga saaro saameynta Turkiga ee arrimaha Suuriya, iyadoo telefishinka Sacuudiga ee Al Hadath uu ka soo xigtay saraakiisha difaaca Israa'iil inay si weyn uga soo horjeedaan ku lug lahaanshaha Turkiga ee Suuriya. Walaaca arrintan ay ka qabaan waxa ay ku sheegeen in ay ku dhalisay digniin ay u direen madaxweynaha Suuriya Axmed al-Sharc kadib weeraro isxigxigay oo Israa'iil ay ku qaaday gudaha Suuriya 48 saac ee la soo dhaafay. Wargeyska Financial Times ayaa maanta ku warramay in Mareykanka uu ka sameynayo biyaha ku dhow bartamaha iyo koonfurta Ameerika wax aan horey loo arag oo ah in dhammaan awooddiisa dagaal uu halkaa isugu geeyay kadib markii ciidanka badda uu ku daabulay xeebaha oo ay la socdaan 7 markab oo dagaal oo ay ku jiraan maraakiibta xambaara gantaalada kuwa wax burburiya hubka nuclear-ka iyo maraakiibta howlgallada badda iyo dhulka fuliya. Warbixintu waxa ay sheegtay awoodda Mareykanka ee dagaalka inay isha ku hayso dalka Venezuela, halkaa oo dib u soo celin karta xusuusta sanadkii 2003 oo Mareykanka uu dagaal ka furay Bariga Dhexe. Dhinaca kale, arrin xiise leh ayaa soo baxday Mareykanka xilli uu ku cadaadinayo Hindiya iyo dalal kale inaysan shidaal ka iibsan Ruushka ayaa Mareykanka waxa uu bilaabay wadahadalo qarsoodi ah oo shidaalka Ruushka uu ku helayo, iyadoo shirkadda Mareykanka Exxon Mobil ay mar horeba bilowday wadahadalo qarsoodi ah ay dib ugu helayso shidaalka Ruushka, sida uu daaha ka qaaday wargeyska Wall Street Journal.